Madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay shirgudoonka labada gole ee Guurtida iyo wakiilada ee Somaliland. Kulankani oo ah kii ugu horeeyay shirgudoonka labada gole ay madaxweynaha ugu yimaadaan ayaa daarana isxog wareysi waxaana loogu lafagurayay kulanka qodobadani. Waxa laga wada hadlayay oo xoogga la saaray adkeynta iyo sii xoojinta nabadgelyada dalka, laba diyaar garowga iyo dhamaystirka xeerarka doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Inta la gaadhin 13 Maarch 2019 waxaanu madaxweynuhu labada gole xog ka siiyay kulan uu la yeeshay gudida doorashooyinka qaranka oo la xiriira diyaar garowga doorashooyinkaasi. Waxa kale oo kulankaasi lagu soo xidhay xoojinta iyo xidhiidhka wada shaqeyneed ee xukuumadda iyo labada gole. kulankani ayaa daba socday kulamo muhiim ah oo madaxweynuhu maalmihii ugu dambeeyay la yeelanayay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa dalka oo ujeedadiisu tahay adkeynta iyo wadajirka danta qaranka iyo shacbiga Somaliland.